kadib muddo 27 sano ah oo uu dalka ka maqnaa maalintii uu yimid maalinkii ku xigtay ayuu geeriyooday qaraxii hotel Xayaat eebaha u naxariistay marxuum Cabdulqaadir Maxamed Cali oo ahaa nin dhalinyaro ah muddo dheerna ku maqnaa dalka Koonfur Afrika oo ganacsi uu ku jiray kana tagay Soomaaliya horaantii 1991 xilli dagaalo ay wadanka ka holcayeen kadib markii iskuulka uu ka baxay ayaa waxa uu soo booqday haatan waalidkiis iyo walaalihiis oo muddo ku siman 22 sano uusan arkin kuna sugnaa magaalada Muqdisho waxaa meedkiisa la'aan muddo ka badan 2 cisho markii qaraxa uu ka dhacay hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho haddaba Dr. Ayaan Maxamed Cali oo ay walaalo yihiin Cabdulqaadir Maxamed Cali ayaa waxay iiga warantay sida geeridiisa ay u dhacday iyo sida qoyskoodaba ay u taabatay geeridan. Hasan Zahra, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ilaahay u naxariisto dhammaan shacabka Soomaaliyeed halkaas ku xasuuqmay. Safar horta soo yimid maalintii Khamiista 3 PM South Africa wuxuu ku maqnaa muddo 22 sano ah kadib markii uu booqasho soo aaday iyo waalidka amaanooyin uu waday in uu hotelka qof ku ballamay uu ku fiye ahayd dadkii hotelka u tagay ma garatay waa gartay kadibna markii ay kulmeen dhalinyarada alaabta uu waday ay fariisteen ayagoo 20 daqiiqo kadibna qadarkaas dhacday kullay saacada unbaa meesha ka qorneyd halkaasuna ku dhintay Cabdulqaadir Allah u naxariisto waa tahay bal waxaad iga warantaa marka Cabdulqaadir waqti ku siman 27 sano ku dhawaad ayuu dalka ka maqnaa xagee buu ku sugnaa oo uu jiray intaas ama kan Zahra Cabdulqaadir wuxuu ku maqnaa South Africa muddadaas dheer wuxuuna ahaa businessman waana ninkii curadka reerka ahaa anagoo dhan soo garab qabtay waxbarashadeena iyo maxaa la dhahaayay nolosheena iyo korriimadeena ilaa ajri xasaana ka siiyo kadibna wadanku wuxuu ugu soo noqday dib si uu la midoobo familka iyo booqashadaas uu ku socday laakiin waxaa dhacday in uu Cabdulqaadir maxaa la dhahaayay arrinkaas uu ku baxay halkaasna uu ku dhintay muddadaas dheer uu maqnaa ka bacdi adigu wuxuu rabay in familka markii uu booqdo inuu wadanka dib ugu soo laabto ma garatay waa gartay oo ganacsigiisa uu dabcan Soomaaliya u soo wareego wadanka maadaama intaas qurbo ku maqnaa waxaa kaloo xusid mudan Cabdulqaadir in asagoo aad u da'yar uu markaas ganacsi bilaabay noloshana harjadkaas asagoo ku jiran waxbarashadiisa uu ku dhinacootay ma garatay waa gartay asagoo marka anaga waxbarashadeena hormariyay oo in badan anaga naga mid ah oo aniga aan u horeeyo ay qaateen maxaa la dhahaayay waxbarashada sare ilaa PhD iyo master aan qaadanay dad badan oo walaalihiisna uu soo saaray intaasna uu asaga naftiisa anaga naga hormariyay uu noo huray waxaan rajaynaynaa ilaahay hortiisa in aan markaati ka noqon in uu ahaa qof waxbarashada jecel cibaadada ku fiican ahli diin ah masha Allah laakiin ilaahay uuna qadarin in aan maxaa la dhahaayay aan sii noolaano intaas ka badan saacadina ay ku dhacday kulley waa un qadar rabbi waa tahay Dr. Ayaan waa kaaga tacsiyeenayaa bal marka dhinaca kale markii qaraxa uu dhacay adinka hotelkana inuu aaday aad ogeedeen sidee buu dareenkiina noqday markiiba seed ku baadi goobteen ama ku ogaateen familka hooyo iyo reerka kale waxay degan yihiin Xamar laakiin aniga waxaan joogay magaalada Garowe oo halkaas deganahay aniga waxaa la iga soo sheegay telefoon oo liiri qaraxaas dhacay daqiiqado ka hor Cabdulqaadirna waa la yahay asxaabtii dhalinyarada la joogay qaar ka mid ahna waxay sheegeen in uu ay ka soo carareen asagana uu meesha ku sugnaa ma garatay waa gartay marka aniga nasiib darro labaad waxa igu ahayd in aan familkana ka fogaa warkan uu telefoon igu soo gaaray laakiin ayaga isla markiiba isbitaalada ay aadeen oo dhaawacay bal wax dhimasho in la soo sheego laakiin nasiib darro habeenkii oo dhan in uu waagi noo bariyay anigana aqadka ku jiray ayagana ay isbitaalada joogeen marka baadigoobka meydkiisa inta la raadinayo ama dhaawac ama dhimasho wax in maxaa la dhahaa hotelka la raadinayo intaasna ay sii dheeraatay oo aanan nolol iyo geeri midna la helin taqriiban wuxuu dhacay falka jimco bacda maqribkii cishaa intuu dhexaysay habeenkii sabtida soo galaysay oo dhan subaxii sabtida gelinka hore oo dhan 4 PM meelahaasa ilaahay soo qadaray wiil yar oo walaalkay in uu hotelkii galo iyadoo weli xabad iyo dagaalkii wixii ay socdaan maxaa la dhahaa saasna lagu soo helay intuu ahaa meydkiisa uu kor istaagay ma garatay
waa gartay marka waxaa kaloo aad usii xanuun badnayd labadii dhalinyarada ahayd oo miidka soo qaadeen walaalahay markii dhagaxa miidka ay saareen in ay xaalad caafimaad ayagana ay galeen oo midna uu kooma galay midna uu aad u shoogay waa dareemi kartaa qof kula dhashay meydkiisa a kor istaagtay weliba cabdiqaadir qarax waxba kuma gaarin xabad rasaas oo toogashaa waxay ka gashay dhinaca bidixe naagta hoostiisa waxayna uga baxday dhinaca kale garabka midige marka waxaan qiyaasnay inay wadnaha goysay halkaasna uu ku naf waayey jirkiisa waxba kama maqnayn ma kala googoyn alxamdulilah halkaasuu marka marxuumkaas ku xijaabtay saasaana isla habeenimada ilaahay noogu fududeeyey oo loo asturay ama maalintii labaad waa u imid reerkii iyo faamilkii tacsiil laakiin aniga asaga isma arkin cabdiqaadir marka adiga gebi ahaanba maada arkin walaalka muddada dheer oo uu maqnaa iyo xataa maya isma arkin ilaahayna ma qadarin mar dhowr jeer oo booqasho uu ku yimid marna waxaan ku maqnaa suudaan iyo waxbarasho marna garow waan ku maqnaa ilaahay ma qadarin is aragno kolley waxaan qorsheynaynay january inaan dib u kulanno hadduu ilaah yidhaahdo sanadka soo socdo laakiin tii rabi waa kasoo horumartay ilaahayna ma qadarin walaalkii in aanu joogno waa tahay doctor ayaan bal hadda waxaad iiga warantaa dareenka qoyskiina muddo nin intaasi la-eg cidda ka maqnaa oo haddana geeridiisa iyo soo noqodkiisa ay kulmeen waalidka maxay dareemayaan ama walaalo kolley zahra waa qiyaasi kartaa dad intaas kala maqnaa isu hilowsanaa xataa saacado ku filan wakti aana wada qaadanin laakiin hadde waxaa ka weyn intaas qadarta ilaahay marka labaad anagoo dad muslimiin ah marka saddexaadna iimaanka in uu dadka celinayo dee qof walba ay tahay safkaas iyo waddadaas in lagu jiro dhimashada haba kala duwanaato laakiin waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay siiba waalidka